Saciidu Mane ayaa loogu magac daray garoon cusub oo ku yaala gudaha dalka Senegal. Warbaahinta maxalliga ee gudaha dalka Senegal ayaa jimcihii qortay in weeraryahanka naadiga Liverpool Saciidu Mane loogu magac daray garoon cusub oo ku yaala deegaan uu ka soo jeedo kadib markii xulka Senegal uu ku hogaamiyey in loo caleemo saaro koobkoodii koowaad ee qaramada qaaradda Afrika. Mane oo ay hadda da'diisu tahay 29 sano jir, waxa uu ka mid yahay xidigaha ugu wanaagsan ee koobka dalka Cameroon lagu soo gabagabeeyey. Laacibkan ayaa dhaliyay goolkulaadkii ugu dambeeyey xulkiisa ay ku qaadeen koobka qaramada qaaradda Afrika markaasoo ay ka adkaadeen Masaarida. Boqolaal kun oo taageerayaal ayaa buux dhaafiyey waddooyinka caasimadda dalka Senegal ee Dakar xilli soo dhoweynta horyaalka Afrika si koobkan ay ugu dabaaldegaan gudaha dalkooda Senegal, halka madaxweynaha waddankaasi Macky Sall uu laacibiintan ku abaalmariyey dhul iyo lacago. waxa uuna ka safay bila sharaf ugu sarreysa waddanka lagu bixiyo. duqa magaalada Riyal Abdoulaye Diop waxa uu yidhi Mane waa sharafta Senegal, deegaanka Saïdo iyo dhammaan gobolka Casamance. waxaa hadalkiisa ku daray, waxaan doonayaa magaca Saciidu Mane inaan u bixiyo garoon Saïdo si aan u muujino qadarinta aan u hayno dhankeenna uu ka soo jeedo, maadaama uu sabab u yahay in deegaankeenna ay bartaan aadanaha oo dhani. dhab ahaantii hadiyadan waa uu mudan yahay isaga. deegaanka Saïdo waxa uu ku yaallaa koonfur galbeed ee dalka Senegal, waxaana ku nool 25 kun. deegaankan ayaa caan noqday kadib markii Mane xidig wanaagsan uu ka noqday kooxda Liverpool iyo xulka qaranka dalka Senegal, waxaana qorsheysan in garoon ku magacaaban laacibkan la dhiso marka la gaaro 2023.